waa nin magaaladan ka tirsan una tirsan kala tirsan هاشم xitaa dadkayga socotada inkastoo aan hore u kulannay oo aan wada shaqaynay ayaa qiimuhu magaaladan ugu fadhiyo iyo waddanka Sweden run ahaantii markaba way kuu soo baxaysaa waayo waa jokerka magaalada ay dhaqaayo hawlu ka baqayay ma jirto Hashim horta marka hore oo kugu hambalyeynaya qoraalka buugga iyo sida taariikhdii aabo Allah u naxariisto oo horisay imse buuggu ka kooban aad ma santahay أنا يقول صبتها ممكن almost كوبين إلى 400 بيت ممكن الله يحفظ يعني أبا وبلاوني لو كنت يعني بيت هونكي فرصة يسامحوا كين waxay bilowna 2020 yani aabala gartay marka buuggan intii aabo noolaa ayaa hawshiisu ay bilaabatay de marka taariikh fara badan oo ku jirta isagaad ka qortay ma oran kara mar kale iyo mararba oo kugu hambalyeynaya hawshan baaxadda leh marka qoraalkiisa u fariistay inta la ku qaato hadda geedii sanad ka dambeysay saddex sano gartay imisa soo marka aabo uu laxmada u sameeyay runtii hadda inta aan diiwaan gelinay waxay gaarayaan way ku dhowiin 200 way ku dhowiin laakiin waxaan buugga ku soo ururinay inta maxaan dhahnaa gartay waxaan jeclay inaan ku weydiiyo Haashimow inta aan aabo Allah u naxariistay taariikhdiisa aad u aqoonin halkeebuu ku dhashay halkeebuu ku barbaaray fankana halkeebuu ka soo galay aabo Allah u naxariistay wuxuu ku dhashay gobolka Mudug magaalo ka tirsan oo la yiraahdo insha Allah waxaan ugu warmi doonaa adeerkiisa ayaan ugu warmi doonaa laakiin in yaroo marxuumka cabdikariim laftiisa aan ka guntay baa waxay ahayd in intii laxamada aan u soo banbixin uu isaga qurgiisu de maadaama hibadii fogku ay ku jirtay wuxuu isku dayay xagga heesaha markaa sheeko aad iyo aad la yaab u lahayd oo aan maskaxdayda ka goyn mar qura ayuu iga sheekeeyo wuxuu yidhi meel ra'iislaaban galay oo markaa heesan qaaday ayaa idaacadda ka soo gashay ra'iislihii oo aan isu kaayay garanayn buuni heesta ninka heestan dee idaacadda ka socotay iyo ninkan qaadaya ayaa igu yidhi buu yidhi waa dee meesha idaacadda ahayd way baabaado cid kasta marka kaale hees baa loodhanaya bal ninkaa codkiisa eega dabadeed waan iska absoosahay buu war waa bahal kharaaba ra'iislihii waa way ka jabtay buu yidhi wuxuu ku sigtay inuu dee maaragtay ha deedna waxaan igu yidhi wallaahi ninkaasi hadduu sidaa uga biyo diiday meel kale isku day markaasaa laxamada baan xaggii heesaa iska joojiyay waxaa sawirto buu yidhi dad fara badan oo kale fikradaa qabay dee taasina waxay muujinaysaa qofka bini aadamkii haddii aan wax ku fiicnay inay jiraan wax kale oo uu ku fiican yahay aanoo la yaab ku lahaa cabdi baadil baaba tahay iga warrami dooneen inta badan ragga Soomaalida laxamada ama samaynta codadka lagaga dambeeyaa waa dad iyagu musical tuma cabdikariim wuxuu kaga duwanaa Allah u naxariistay isagu qalab music ma tumi jirin marka qof aan dawad weydiin karaysa qof aan tuminba qalabkii inuu haddana sidaa u garto dhawaaqa kiisa ugu wanaagsan ee la sameeyo waa arrin kale oo mucjisaad runtii cabdiyow inta badan ragga laxamada lagaga dambeeyaa mid ama labay ka tumaan qalabka soo maha inta badan mid ama labay ka tumaan inta badan dadka laxmada sameeya gartay laxan samayntu muhiimadii intee lag bay u leedahay heestu inay soo baxdo
in ereyada la jeclaado, in lagu ciyaaro, هاي in heeska uu jacayl keeno in la wada jeclaado. Sababtoo ah hadda waxaa jira hees gabay ka fiican yahay oo gabaygaas heeska ka murti badan laakiin ayna dadka dhegeysanin. هاي laakiin heeskii luuqayntii magaranaysaa yay ku jeclaanayaan dadka marka codkana wadda macna u sameynaya macna u sameynaya. sababtoo ah hadda reer miyiga laftigooda way heesaan way oo xafladay leeyihiin gaar ah oo miyiga ku qabsadaan. هاي marka haddii ay dhahaan hobeeya hobeeya hablaha isku soo baxo hobeeya nin walba gurigiisu joogaya. laakiin markii la hobeeya hablaha gobaanta jira hobeeya waa la soo wada yaacaya. هاي marka taasaa laga xaday. marka toon waa dee tii casriga ahayd oo bilaa music oo laxamiistaan ku sheegay waa tu kaambu ka xad. way marka kii baan macnaha sii qurxinaynaa garanaysaa. marka qaybtaas oo jiibtii iyo jaantii bay laxam ku fadhiyaa wuu ku fadhiyaa. kasoo qaad hadda sangub oo kale dadku ma oga waa laxamiista. way heeso badan buu laxameyn jirto. hadda malakana kaliya hadda markusoo waynayo iyo wada laxanka sidaa u samee daa-uda qabsanaysa. yaa sameeye laakiin sangu way buuggan aynu caawa u fadhinay laxandhood oo dabcan taariikhdii cabdikariin jiir ka warramaya iyo laxamadiisii. haddii cabdikariin laftiisa allah naxariistaan mid kaa weydiiye laba kaalinteegu kaga jiray baad odhan lahayd laxamiistayaasha soomaalida? number one way sababtoo ah isagu annagu wuxuu nagu dhaamay annaga kabankaan dadku jeclaysiinayna ama aan ku raadinayn. isaga laakiin wuxuu ku raadin jiray kabriidka. kabriidka unbuu qabsanayaa fartusaan leeyahay jag jag marka taas waa isaga number one nooga ah iyo tiro badnida laxmada inta tiro uu sameeyey. maxaa gaar u ahaa laxamadiisa? laxmadiisa waxaa gaar u ahaa wuxuu sawiri jiray aniga hadda fikirka aan ka haystay ama asaga xitaa aan ka maqlay fikirka uu ka haystay heesaha marka la sameynayo haddii ay murugad tahay murugadii uu muujinayo oo kama dhigayo dhibbaa i haystaa oo waan daalanahay ma dhahay. wuxuu ku leeyahay no jooji dhibkii muuji dhibbaa i haysto waan daalanahay. marka actionkaasuu na siin jira haddaan laxamiistana annaga waa ka qaadan jirnay talada. waxaa laakiin iloobi la ahay waxaan jeclahay su-aashaan cabdibaadi weydiiye adiga ku dhaala cabdikariin jiir allah u naxariistay kaalintii fanka soomaalida uu ku lahaa maxaad ku tilmaami lahay? horta kaalin aan la heli karin oo fanka soomaalida aan laga heli karin iyo bedelowga soomaaliyeed ayuu ku lahaa kaalin koowaad ayuuna ku lahaa. aniga cabdibaadil isku mar baan ahayn fanka aan soo galnay walow anigu muddo marka la shaqeynaya aan ka tegey. laakiin cabdikariin allah yarxamo wuxuu ahaa kaalinta koowaad fanka tiirkii fanka. ma la odhan karaa heesaha beledweyne ay ka mid ahayd oo kale laxankoodu isbedbedelo ninkii ugu horreeyey fanka soomaalida kusoo geeriyey buu ahaa? horta waxaa jiray heeso hore oo laxankooda aan la dareemayn oo heesihii qaraamiga dadku hadda qaraamiga waxay u yaqaanaa heesihii dhexe ma aha heesihii hore carwo iyo uronjire iyo oo markii heestii la qaado ee heestii gadaal iska yara bedelaysa ayaa jiri jirtay. laakiin modeelkan dambe oo u suubiyey heestii beledweyne cid ka horreysa suubisay
markii dambena haba ka qaban bay noqotay Soomaa haba ka qaban bay noqotay iyo ku dayasho garta waayo fanku waa ku dayasho runtii aniga cabdikariin waxaan ku tilmaami karaa aabihii fanka aabayaashii fanka ayay ahaayeen way jireen aabayaal badan fanka ah laakiin aabihii fanka ayuu ka mid aabayaashii fanka ayuu ka mid ahaa أنا شو قفان كنت المام لكن ما شاء الله حق اللحنك يو يعني كذا هسا أسلوب برديك جري هسا أسلوبيو فلان أسلوبيو ومركب عم بيحجري واللحن كيسك عم بيحجري فها بريح markaa samaynta codadku ma hibo ilaahay dadka siiyaa sidan dee codka oo kale mise waa wax la barto runtii dad baa waxay yidhaaheen daraac wey oo qofkaas wuxuu ka yidaraacay fanka meeshaas ama laakiin qofka bini'aadamka haashim waxaad leedahay rajabiisa waa fiicantii meel aad u fiican tahay anigu waan ku dareemaa haashin inuu fanku lafaa ugu jiro waayo haashin dareem badan baan ka leeyahay marka qaarkood aan la sheekaysanayo markaan kow arkayna maalintii dhaweyd bay horta aad buu aabihii ugu egyahay maasha allah haddana markii aan arkay markii aan la sheekaysanayay aad baan waxaa uga dareemay inuu aabihii hiddo ka wato weyn uu ka wato fanku waa wax ilaahay kugu beero laxankaa suubinaysa waa wax ilaahay kugu beero waxaan oo dhan waa wax rabbaani ah anu fanka muddaan ka maqnaa haddana waan ka ahan anoo joogaan bal waa hagaag barnaamijka qaybihiisa kale halkaasay nooga sii soconayaan waxaan hubaa in dad fara badan isleeyihiin hadalka badan dib haydinku yara dhigo